بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta soo qaatay cajal video googlaha laga soo qaaday khaasatan qaybtiisa Google Earth-ga ama maabyada sababtoo waxaan akhriyay qoraal laga qoray Soomaaliya oo la dhahayo Soomaaliya waxay u saaran tahay macluul majaaca waxay u saaran tahay in ay dadkii baaba'aan xoolihii baaba'aan wax walba ay baaba'aan. googlihii markaan tagayna waxaan arkayaa beero maasha Allah tabaarakallah iyo webi dheer sida u jeedaan oo ma aragtay wax walba lagu beeri karo laga soo bilaabo ilaa iyo xuduudka beenaadka Itoobiya ilaa iyo badda soconayo oo intaasoo kun oo kiiloomitir xataa mitir ma ahaya waa kiiloomitir yacni 700-800 camal ku qiyaasi kartaa oo kiiloomitir oo haddana aan hal webi ahayn oo laba webi marka maxaa qaldan waxaa la leeyahay adduunkii inooma jeedo yacni waxaad arkaysaa nin weyn oo mas'uul ilaaha waaxido weyn oo mas'uul Soomaaliya sheeganayo oo dhahayo Soomaaliya macluule qarka u saaran tahay adduunkiina ma aragtay inooma soo jeedo oo ma aragtay waa naga jeedaa markuu saas leeyahay oo wuxuu leeyahay dagaalkii Ukraine dhibaato keenay oo ma aragtay dhaqaale xumada adduunka Soomaaliya laakiin qarka haddaysan ku sii socoto baahi iyo ma aragtay oon iyo haraada u dhimanayaan. webiga Jubba waa taas waa u jeedaan biyo waa leeyahay hadduu qalalana wuxuu qalalayaa dhowr bilood xataa dhowr bilood ma aha ka yar uu qalalayaa geesihiisana lama beero sababta loo beeri waayo waa maxay waxa waaye xukaamta Soomaaliya oo faasidiin kuwii hore iyo kuwa joogaba isku wada dar waa wada faasidiin ilaahay sharkooda hanaga qabto waxay ku dagaaltamayaan waxaa micno lahayn waxaa kuwaas ka sii daran ragga qabiilada madaxda u ugaasyada sheeganayo oo ma aragtay qabiilkooda inay mas'uul ka noqdaan loogu talagalay maxay ayakana ma aragtay qabiilkooda intee yacni qabiil Soomaaliya qabiil waa waxa dilay qabiil ma dalka ku dhisan oo ma aragtay qabiil walbo dadkiisa intuu iskugu yeero oo maxal hayay beerahan iska bannaan dhulkan iska bannaan intii ma aragtay la jiheeyo ma la falo amniga waa ogahay inay ugu muhiimsan tahay laakiin waxaa ka muhiimsan dadka oo isku tiirsanaado nin hadeer maanta Soomaaliya loo diiday in uu beer falo ma jirto fiiriya webiga quruxdiisa dhererkiisa waa la yaabaysaa waxaa kaaga sii daran waxa imaanayo musaacadaad dalal carbeed markay imaadaan dalalka carbeed waxay ka soo degayaan garoonka Muqdisho markaas waxay sii marayaan Afgooye iyo Janaale iyo Jowhar markaas geeskaana fiirinayaan waxay dhahayaan meeshan waa jannateen bawaaye jannateyni ma aragtay an yamiinin wa an shimaal waa hadda inta fiirisid jannad arkaysaa hadda dhinacan kale fiirisidna janno kale arkaysaa way sii socdaan waxay arkayaan xoolo qurqurux badan maasha Allah tabaarakallah oo ma aragtay buurbuuran oo meesha socdo oo ma aragtay fooq alqiyaal yacni ma aragtay wax aan maskaxda soo galaynin dhulkooda markii la fiiriyana waa saxaro qaaxil ay ku dadaalaan maalin walba timir ay ku beeraan oo hadda imaaraadka oo kale dhulka saxarada waxa lagu beeray 5 milyan geed oo timir Soomaaliyana ka biyo badan haddeer waxa ogtihiin Soomaaliya dhulka ugu kulul waxa ku maqli jiray Boosaaso iyo Bari maantana Bari iyo Boosaaso waxa lagu beeraa timir waxa lagu beeraa liin waxa lagu beeraa tufaax xataa waa lagu beeray wax walba lagu beeraa marka Soomaaliya aqla isticmaala adduunka gacanta u horursanaysaan iska dhaafa iyo intii dad Soomaali oo ma aragtay xurmad leh oo fiican intii saf la soo geliyo loo dhigayo kiish bur iyo kiish timir iyo kiish saliid iyo kiish ma aragtay oo la soo musawiranayo musawir igu qaat photo up lagu sameynayo waxaasayta iska daaya beeraha u soo jeesta siyaasadda iska dhaafa fadha ku dirarka iska dhaafa siyaasiyiintan ilaahay ha soo hanuuniyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.